السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو dhawaada dhammaantiini mar kale waa aniga Zakariya isku soo noqod wanaagsan iyo daawasho wacan muuqaalkaneed waxaan diiradda aan ku saaraa coinka XRP oo ah coinanka ugu waaweyn oo suuqaneed cryptocurrency ku jiro oo sidoo kale market capkiisa uu yahay 127 bilyan oo dollar ah oo ku jiro kaalinta afaraad coinkaneed wuxuu hadda price-kiisa u maraa 2.18 senti ayuu maraa circulation supply waxaa ku jiro almost boqolkiiba 59% ayaa circulation supply ku jiro oo macnaheedu ay tahay wixii hadda suuqa yaalo oo dadka ay kala iibsan karaan max supply-giisana wuxuu ku eg yahay 100 bilyan oo dollar ah taasna hadda si loo fiiriyo waxa waaye uu yara badan yahay iyo market capkiisa oo badan 127 bilyan oo dollar ah projectan hadda fiirno barto Twitter waxaa ku xiran 2.1 milyan 3.1 milyan oo qofood ah ayaa follow gareeyo bartood oo Twitter taasna waxa waaye tiro badan waaye XRP waxa waaye waa blockchain waaye sidoo kale waxa waaye koonan ayaa ku dul dhisan hadda fiirno waxaan arki karnaa coinka Ripple oo la yiraahdo RLUSD waa coin oo stable coin ah oo backed to 1 USD ah halkii dollar oo RLUSD wuxuu u dhigmadaa hal xabo oo dollar ah sidoo kale waxaan karnaa in projectyaal kale ay ku dul dhisan yihiin blockchain-ka oo XRP hadda fiirino waxyaabaha ay qabtaan waxa waaye waxaa loo adeegsadaa paymentiga oo ah cross border oo dowladooyinka in lacag aad u wada diri kartid adigoo isticmaalayo XRP waxaa isticmaalo shirkadooyinka waaweyn institutionada dadka caadiga ah qof walbo ayaa isticmaali karo focuska laakiin waxay saaraan dadka jeebweynayaasha ah sidoo kale waxaan arki karnaa SOC 2 type compliant inay tahay ISO 27001 inay tahay Payment Association member inay tahay American Bankers Association member inay tahay oo ah bangiyada oo Mareykanka in ay la shaqeyso hadaa fiirino dadka ka dambeeya projectganeti backing gareynayo waxaa ka mid ah Andreessen Horowitz ayaa ka mid ah waxaa ka mid ah Standard Chartered ayaa ka mid ah Seagate ayaa ka mid ah sidoo kalena iyo shirkadooyin kale oo waaweyn ah hadaa fiirino teamka ka dambeeya projectganeti leaderska waxaa arki karnaa in dad waaweyn ay ka dambeeyaan uu ka mid yahay Brad Garlin House oo ah CEO-ga iyo Chief Executive Officer uu yahay waxaa sidoo kale aan arkanaa David oo ah Chief Technology Officer waxaa arki karnaa Monica Long oo ah presidentiga iyo team kale oo fara badan intaanid waxay ka shaqeeyaan XRP teamkiisi waaye sidoo kale waxaa badnaan la arkaa oo wejiga muuqda oo ah Brad ayaa badnaan laga arkaa baraha bulshada hadaa fiirino shirkadaaneti oo XRP shirkadooyinka ee partnership ay la leedahay lastig waxa uu dheeryahay waxaa arkanaa DZ Bank ayaa ka mid ah Lumniway ayaa ka mid ah waxaa ka mid ah Tranglo ayaa ka mid ah SPI ayaa ka mid ah Modular ayaa ka mid ah GMT ayaa ka mid ah waxa waaye shirkadooyin institutions waaweyn iyo bangiyaal waaweyn ah sidoo kale waxaan arki karnaa SAB ayay partnership ay leeyihiin oo customer ahaan ah sidoo kale waxaan arki karnaa waxyaabaha oo dadka feedback ay ka bixiyeen projectgan oo ah XRP iyo kuwa isticmaalo hadaa fiirno XRP price-kiisa wuxuu maraa $2.20 ayuu maraa hadaa fiirno projectgan wuxuu soo baxay xiliyadii hore ayuu soo baxay data hel xarkarnaa 2013 markii uu cusbaa ayuu ahaa wuxuu kusoo baxay price aad u yar oo 0.0044 ayuu ahaa wuxuu qarxay oo cirka uu ku shareeray markii 2017 la gaaray markaasiti exchange-yaal fara badan ayaa la soo geliyay waxaa aragnay in uu qarxay oo gaaray ilaa ay almost $3 u dhow ayuu gaaray kadibna waxaa aragnay correction ayuu galay sidoo kale hadaa fiirino shirkadda oo XRP waxay rabtaa in ay iibsato shirkadda Circle oo soo saarto coinka USDC waxayna sidoo kale usoo gudbisay codsi oo ah 20 bilyan oo dollar ah taaseed oo ah haddii oo shirkadaanit ay iibsato taasna step weyn waaye oo shirkadda XRP oo ay naqanayso dadka ugu waaweyn ee suuqaaniti cryptocurrency XRP waxay leedahay suuq oo NFT ah oo NFT-yo kala duwan aa ka heli kartid kuwaan dhan waxaa waaye NFT sidoo kale waxay ku dulsayin blockchain-ka XRP oo la yiraahdo Ledger waxaa ku gadan kartaa XRP ayaa ku gadan kartaa NFT yadaaneti sidoo kale waxaan aragnaa suuqyadaaneti waa suuq kale oo NFT ah oo ku dulsan XRP sidoo kale waxay leeyihiin
tokenization oo ah in real world assetka oo loo soo gudbin karo ayagoo isticmaalayo sologenic dapps la yiraahdo soo jeedin waxa waaye waa website oo ah tokenizationka lagu talgalay wax walba waxa waaye real world asset ah waxaa loo soo gudbinaa blockchainka ayaa loo soo gudbinaa soo kale xalin dex ya isla dex xataa uu leeyahay hadda aragno coinan ayaa meeshaan ku iibsan kartaa iska iibin kartaa waxawaaye waa ecosystemdiga wuxuu ka mid yahay XRP sidoo kalena adiga ayaa coin samayn karo oo adigoo wax experience ahad lahayn no coding experience hataa uma baahnid very easy waaye coin ayaa adiga aad samayn kartaa sidoo kale waxay leeyihin wallet oo la yiraahdo Xman oo ahay magac kale ayuu hore lahaa hadda Brendan ay isku sameeyeen sidoo kale waxaa laga heli karaa Google Play iyo App Store iyo extension ahaan ayaa loo isticmaali karaa XRP waxaa arkanaa army inay yihiin dadka oo suuqaan run ahaantii ugu loyalty badan ugu powerfulka ah aad ay u taageeraan coinka XRP aad ay u aaminsan yihiin waxa waaye sida xiliyadii hore ilaa hadda team oo wuxuu leeyahay balaaran iyo community inaba aan caadi ahayn oo aaminsan XRP mustaqbalkiisii iyo meesha uu gaari doono haddaa fiirin partnership yaasha waxaan karnaa shirkadooyin waaweyn haddii taa dhanka bangiyada waxaa ka mid ah Bank of America BBV ayaa ka mid ah iyo shirkadooyin kale iyo bangiyaal kale oo waaweyn so XRP waxa waaye coin oo weyn waaye laakiin waxa lagu dhaliilaya waxay tahay in market capkiisi uu badan yahay dad qaarkood leh $500 ayuu gaaraa taasna macquul maaha in $500 uu gaaro at least bull market kan xitaa $100 ma gaarayo $50 ma gaarayo waxa waaye price protection kiisi hadda waxay ka bacda ay sameyn doonaa meesha city meel ka yar ama exoyin way ku jiraan laakiin $500 iyo akid $100 meelaha city ma aha okay sidoo kale haddaa fiirino chartigiisi waxa waaye xaragnay in 2024 dhammaadkiisa October in hal mar uu cirku uu ku shareeray kadibna hadda correction uu galay coinkan XRP waxa waaye waa coin de oo use case leh oo la isticmaalo bangiyada waxay isticmaalaan ISO ka mid ah sidoo kale waxa uu dheer in ISO ka mid ah in uu yahay made in USA oo ah shirkadooyinka oo Mareykanka kasoo jeeda sidoo kale wuxuu ka mid yahay Coinbase 50 index ayuu ka mid yahay shirkadooyin kale oo waaweyn ah ayaa portfoliogood ugu jira coinka XRP sidoo kale wuxuu ka mid yahay koonanka oo ku jiro Cape Reserve oo Mareykanka pricekiisi intuu gaari karaa coinka XRP bull marketkan XRP wuxuu gaari karaa ilaa iyo heerarkan ayuu gaari karaa oo ah ilaa iyo $6 ya $6 macquul waaye XRP hadduu meeshaan uu dhaafo targetkiis kale meeqa ayuu noqon doonaa waxaa laga yaabaa ilaa iyo $8 haddii uu kasii bato ma laga yaabaa meel kale inuu gaaro haddii uu kasii bato cirka uu ku shareero ilaa iyo $10 ayuu gaari karaa laakiin realistic ahaan $6 ayuu gaari karaa bull market kanit oo ah 2x kale ayaa ku jirto $2 $4 $6 ayuu noqon karaa bull market kanit coinka XRP maaha coin oo $100 ku gaaray sababtoo waxaa keenayso in market capkiisa uu badan yahay uu yahay $127 bilyan oo dollar ah soo sida hal x uu sameeyo wuxuu u baahan yahay $127 bilyan oo kale ayuu u baahan yahay marka realistic ahaan haddii loo fiiriyo coinka XRP $6 ilaa $8 waa macquul haddii wax mucjiso ay dhacdo lacag badan uu soo galo ilaa $10 bull market kanit waa laga filaysan karaa coinka XRP adiga maxay kula tahay XRP meeqa ayuu gaari karaa commentiga nala wadaag wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu